الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين داوداشا قيمها بدن تيفيغان سومالي جنال كسو دوادا برنامج كيني شريعة iyo bulshada oo aad maalin kasta oo talaada kala socoteen تيفيغان سومالي جنال استوديوhiisa ku yaala magaalada London barnaamijkaas oo aan ku falanqeyno mar kastaba qodob muhiim ah oo kamid ah qodobada shariicada islaamka oo la xiriira bulshada iyo sida shariicadu ay u tawjihiso bulshada waxaan ku jiraa sida aad ka warqabtaan bilihii aadka u khayrka badnaa oo ahaa bilihii lagu magacaabay mataqaana bilihii xajka waxaan ku jiraa bishii dhulqa'daan ku jiraa oo waxa ka dhiman xajkii maanta dhulqa'da waxa weeyaan 27 marka xajkii waxa ka dhiman wax dhowr 10 bari 13 bari ayaa ka dhiman maalinka ciida 13 bari waa ka dhiman haday bish 30 ku dhamaato haday bish 29 ku dhamaatana waxa ka dhiman 12 bari ayaa ka dhiman ciidi 12 bari waxa ku jira 10 bari ee nabiga kaleey salaatu wasalaam uu ku tilmaamay ee uu yiri ma jiro maalin kamid ah mataqaana maalmaha oo amalka wanaagsani mataqaana ilaahay uu ka jecel yahay maalmaha 10 oo ilaahay uu ku dhaartay oo mataqaana walayaalin 10 uu yiri ayaa mataqaana 10 soo socda ku jira oo loo baahan yahay in aad looga faa'iideysto hadda ka hor waxaan ka soo hadalay xajka iyo xukunkiisa iyo waxyaalaha la xiriira maanta waxaan ka hadlaynaa insha Allah oo marna xalaqadeena maanta ka hadli doonaa duruusta ama ashirada laga faa'iideysto xajka tarbawiyan qofka muslimka uu ka faa'iideysanayo oo uu mataqaana ka qaadanayo xajka oo u noqonaysa xajka kadib ama mataqaana wixii xajaj kala gaaraba u noqonaysa faa'iido uu ka helay xajki marka ama tarbiyo ama duruus uu ka faa'iideystay oo uu ka kasbaday xajka ayaan maanta ka hadli doonaa insha Allah waxa barnaamijkeena maanta inala falanqeyn doono oo inala jooga sheekh kamid ah culimada Soomaaliyeed ee UK أخونا الشيخ عبد العزيز آدم ومتقنا إن دجن ودن كان إنجليزكا وحنا كصوبرتي ودم كل الدول أو كمية الشريعة الإسلام كيو لحريرة سوماليا مركا إن شاء الله وحنا الشيخ عبد العزيز كسودو استوديو سومالي جنال مركو هري دوي بارك الله فيك مركا الله بعد وحنجعلها هنا دحوجا بالنوعتها بتو توان كبري أساس عطا وإنه قد ما تقدر كبري فضل إلى هي عملك الشيء اللي ليه عملك صالحة وحويه يعني بارك الله فيك شيخ محمد جزاك الله خير أدب ما هتسنتهاي أدق إيو خيات سومالي تي في به مرتقات كمتقان إن شاء الله تعالى برنامج نقوم مرتقادين إلى سبحانه وتعالى حسنات هذه نقدر إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين إلهي بام هذا سبحانه وتعالى مركا كواد مركا لباد إن شاء الله تعالى وحوغا كهدلي دونا أما أنت المامي دونا فضل يوناق إلهي هاي طبعا كما الموض صوص عدا إلهي سبحانه وتعالى كونك مركو أبوري الدوميس أبوري إلهي سبحانه وتعالى خلقي سواك لفضلي سود بني آدم كأغردقي خلقي سكو أقوى ناكسان أقوى فضلك بدن لا ولقد كرمنا بني آدم إلهي قرآن كأكيري إلهي معلمهنا وكلا دورتي maalmihii uu kala doortay bilihii waa la kala doortay ilaahay subxaanahu wa tacaala marka 10 bari waxay ka mid yihiin 10 bari ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u dooray dadka mu'miniinta ee muslimiinta inay ka faa'iideystaan waxa laga yaabaa ummadihii hore waqti dheer inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siin jiro ilaahay ku caabudaan ilaahay ugu cibaadeystaan laakiin ummadeena cumriga uu kooban yahay waxa laga yaabaa 67 inta u dhaxaysa inay average ama mataqaana guud ahaanba uu ku eg yahay marka ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa iyo deeqsinimadiisa waxa kamid ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoo soo kabay bisha Ramadaan ina siiyay habeenul qadr ee ku jirta 10 bari oo nabi sallallahu alayhi wasallam uu xadiis ku yiri ibn Abbas xadiiska uu warinayo nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu tilmaamaya wanaaga iyo fadliga ay leeyihiin 10 bari ee fooda inagu soo haya markaas waxa uu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam ma jiraan maalmo amalka wanaagsan إلهي لوجا جعل يا حق سبحانه وتعالى مالمها طبنك عمل وناكسن ومالمها إلهي سبحانه وتعالى وجد جعل يا عمل وناكسن إلا سمايو ولذلك وطبنك مالمود وقف بدن سنة كمرك مال نحال ليراه صحابة المركة آدوا إلى يابين أو واحد كل النبي الله صلى الله عليه وسلم طبنك بريء عملك الله سمايو جدهوجو جهادك إلهي درتي لو جهاد يقفك نفتي سيمال كيس أهريو عملك الله سماياي ما كفد بديهي نبي صلى الله عليه وسلم وحكوري ولا الجهاد في سبيل الله جهاد كنا كما فضل بدنا
camalka maalmaha la sameeyo hadday salaad tahay hadday cibaado tahay hadday quraan akhris tahay hadday xus ilaahay tahay subxaanahu wa tacaala kama fadli badna hal nin unba isagu waxaa koobsaday oo ka fadli badan bu nabigu sala allahu alay wasalam nin ilaahay dartii u baxay oo jihaad u baxay oo jihaad saxa oo xaqa u baxay dabadeedna naftiisii iyo maalkiisii ayaan waxba ka soo noqonin oo isagu mataqaanaa ku halaagsamay naftiisii iyo maalkiisii iyo mataqaanaa wax ay ku tageen oo sida ilaahay subxaanahu wa tacaala kula kulmay kaa unba ka fadli badan oo ka wanaagsan camalka la sameeya maalmahaas marka maalmaha wanaagooga iyo fadligooga waxaan ka qaadan karnaa oon ka fahmi karnaa xadiidkaas nabigu sala allahu calayhi wasalama uu tilmaamayo aayadda qur-aanka walfajri walayaalin cashrin ilaa ka ku dhaaranaya mataqaanaa muxuu ahaa subaxa dabadeedna walayaalin cashrin 10 maalmo ah oo culammadu mataqaana ay ku fasireen inay tahay 10 maalmood ee bisha dilxijo u horeeya 10 maalmood waa 10 acmaash xajka la gudo oo acmaashi xajka fadligeega iyo wanaageega dhan baa la gudanayaa marka 10 aad u fadli badan oo aad u wanaagsan weeyi waana fursadaha Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo ina siinayo inaan ka faa'iideysano sababta bani aadamku waa taqsiir badan yahay waa gaabin badan yahay waa dambi badan yahay marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala markasta wuxuu siinayaa jaanis iyo fursad aan ka faa'iideysano Ilaahay ugu tabadkeeno aan camalka saalixa iyo kafada miisaanka culus ee camalka saalixa aan ku kordhino oo aan ku beerino Sheekh Abdul Aziz waxa laga yaabaa hadda mataqaana camalkaas hadda camal baa la yiri moogtahay sax camalka dadka qaarkood waxay u yaqaanaan camalka wanaagsan inuu dad kale wax u qabto marka macnaha camalku ma noqon karaa qofku hadduu xataa naftiisa wanaag u sameeyo oo haddii uu xumaan ku jiray xumaanta uu ka joojiyo hadduu maartay wax dhacay dhici uu ka istaago haddii uu been sheegay beenta uu joojiyo camalka saalix laga hadlayo inuu macnaha yahay camalka qof kale gaaraya iyo ka naftiisa gaaraya labadaba marka ma barakallahu fiik ilaahay subxaanahu wa ta'ala markuu camalka saalixa laga warramayo quraanka islaamka xadiis ay ka warramayso laba mid weey inuu qofku wanaag u sameeyo oo salaadii uu tukado soonkii uu la yimaado maya intuu isla fadhiisto isxisaabiyo inuu balqiimeeyo jidka uu ku taagan yahay jidka Ilaahay ka rabay miyaa hadduu markaa meel qaldan ku jiro inuu ka soo laabto waa camalkii saalixa ka mid tahay oo dhaha subxaanahu naftaydii waa inaan wanaaga ku toosiyaa oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala fursada inta ay hadhay aan ka faa'iideystaa marka camalkii saalixa wuxuu noqon karaa mid adiga ku anfaca naf ahaan oo cibaadaadka adiga ku anfacayay inaad kordhiso gaabiskii iyo dambiga aad ku jirtana inaad ka toobad keento sida xataa culimadu toobada marka ka hadlay waxay dhahaan inuu qofku walaba mid dambiga ka toobad keenaysa laba mid buu noqonayaa inaad mataqaana waajib aad ka gaabisay aad ka toobad keento ood mataqaana waajibkii la timaado maya dembi aad gashay inaad ka toobad keento ood mataqaana Ilaahay dembi dhaaf ka weydiisato marka camalkii saalixii marka adigu taala timaado wanaagii kale ee wanaagsanaya mataqaana nafcigiisu uu umada gaadayna isna camalkii saalixi wax kasto adoomaha Ilaahay anfacay Ilaahay xadiis wuxuu ku yiri adoomaha Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa ugu wanaagsan ugu fiican anfacuhum li'iyali la wa anfacuhum li khalqi Allah dadka Ilaahay khalqiga Ilaahay cidii wax taraysa wanaag u tilmaamaysa khayr ku kordhinaysa ka baahan baahida ka reebaysa ka dhibaataysan dhibaatada ka saaraysa ka halowsan toosinaysa ka jaahilka wax baraysa dadka camalka saalix oo dhan waxa soo galayaan camalkii saalix ay soo galayaan marka camalka saalixa ama naftaada ha u noqdo ama qeyrka ha gaaro labadaba way soo galeen camalka saalixa qofku marka uu la yimaado marka xadiiskan hadda ma ka fahmi karaa mafhuum mucaakis oo ah qofku hadduu maalmaha 10 ee soo socda camal xun uu la yimaado inuu Ilaahay aad u nicay camalkaas ilaahay mataqaana carad Ilaahay inuu ku dhacay khatarta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala sidoo noo siiyay inaan maalmaha ka faa'iideysano maalmaha Ilaahay uu karaameeyay ee uu xurmeeyay camalka wanaagsan ee saalix ana waa la karaameeyo waa la libin laabay marka dambiguna waxay noqonaysaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka nicbaanaya maalmihii kale sababta maalmihii Ilaahay xurmo gaar iyo sharaf gaar uu siiyay ayaad adigu ixtiraami weeyay oo sharfi weeyday sidoo Ilaahay u sharfay marka dambiga aad gashayna uu ka cuslanayo dambiga aad waqtiyada kale gasho marka iyada lafteedu mataqaana waa midna ku jirta oo qofku ogaado dambiga 10 maalmood uu galo ka Ramadaan uu galay waa ka weyn ka maalmaha kale uu galo marka inuu qofka xataa ogaado muslimka ah dambiga aad galaysa maalmahani inuu ka weyn dambiyada kale sidoo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ajarka iyo wanaaga iyo xasanaadka aad sameynayso ay uga wanaagsan yihiin maalmaha kale iyo wanaagooga waxaan ognahay rugniga shanaad oo xajka oo kamid ah arkaanta islaamka dadku aad bay u gutaan macna arkaanta islaamku sidaan ka warqabno waxa weeyaan furaha ugu horeeya islaamka lagu galo waa tawxiidka weeyaan waa shahaadada marka dadka muslimiinta oo dhan way wada dhahan laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah marka midda ku xigtana waa salaada waa amal markasta loo baahan yahay qofku inuu la yimaado waxaad arkaysaa dadkii inay ku adag tahay oo ina mataqaanaa ay qaar badan oo dadka muslimiinta aynu tukanin waxaa ku xiga oo camalka ku xiga mataqaanaa saddexaad noqonaya waa soonka waxaad moodaa in dadku aad ay ugu fududa waxaad marka ku xiga zakada waxaad moodaa dadka inay ku adagtahay inay bixiyaan
oo inta badan maalkii iyo wixii dadku ay jeclaan la xiriidha صح marka xajka waxaad arkaysaa in dadku ay aad maartay xajka u wada daneynayaan oo qofku xataa dayn uu raadinayo inuu ku xajiyo daraadeed ama dadka qaarkii waxay bise u xajiyaanba mataqaanaa maalka ay kasbanayaan xataa ma fiirinayaan xalaashiisa iyo xaaraan wuxuu yahay marka maxaan odhan karaa munaasabaadka noocaas oo kale ah masalan oo cibaadaadka salaadii caajis baa jira zakadii caajis baa jirta bixinteedii laakiin soonkii oo bil ah oo mawsumi ah iyo xajkii oo isagana sanadkii hal mar ah oo isagana mawsumi ah dadkii way aad ugu dadaalayaan بارك الله فيك كرت عبادات كله سبحانه وتعالى وجديه أو دان أو صلاة كبلا ميسو عبادة كستوى مهمة جارة يوجد جارة هي متقارنة مستوى جارة في جارسينيسا إله سبحانه وتعالى مركز حتى واحد فهم كرتها أن ترتيب تحت الله سبحانه وتعالى والترتيبي أركان تاس ممكن قف التوحيد كقرأ لما أقول إن متقارنة حج كله إمه صان كله إمه صلاة اللي إمه لين مركز قف كصلاة واحد أدي يارنا يسا هرتكو إله بكحر يسا قفك وقفك أدوانnimadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu garowsado Ilaahay u sujuudo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu isku dhiibo marka qofkii markay diyaariso ay qalbigiisa nadiifiso acmaashiisa nadiifiso ay akhlaaqdiisa nadiifiso ayaa hadana soonkiiba qofkii gudanaya marka salaadiidu waa maalin kasta joogta marka maalin kasta qofka 5 jeer buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa qofkii farad kuntu kada Ilaahay la xidhiidhaya oo Ilaahay la hadlaya oo akhlaaqdii toosinaya oo amalkii saalixa ku jira taa marka loo gudbo hadana soonkii baa yimiday bishii Ramadaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo iyana bisha barakeysan habeenka Laylatul Qadr uu ku jiro oo dadka badankiisu ay gutaan marka horta salaada kow wax la leeysan kara maaha waa in lagu dadaalaa oo mataqaana ahmiyada mataqaana weyn bu Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo salaad xataa dunuubta marka qiyaamaha la tago waxyaaba cajaabta waxa kamid ah marka Ilaahay subhanahu dadku naarta galaan ee la weydiiyo qayb ka dadka naarta galeen ma salakakum fi saqar maxaa idin galiyay marka la weydiiyo waxay u horeysiinayaan qaalu lam nakum min al-musallin ma anaan tukan jirin akbar dambi oo qaranaya marka waxa weeyaan waxaan dayacnay waajibka Ilaahay koowa salaadi marka salaadu saasay mataqaana ahmiyad u leedahay soonkana isaga mataqaana saas u leeyahay marka salaadii qofkii way diyaarinaysaa soonkii qofkuu diyaarinaya labada qof markuu si fiican u gudbo ka soo baxo wuxuu imanaya isagoo qalbigiisa iyo mataqaana ruuxdiisa iyo akhlaaqdiisa ay diyaar tahay ayaa zakadii imanaysa markuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yiraaho zakadii la idinku waajibtay bixiya sadaqadii bixiya qofkii already waa diyaar inuu amarka Ilaahay subhanahu wa ta'ala u dhaga nuglaado oo maqlo salaadii soonka ba u diyaarisay marka qofku markuu zakada ka gaabinayo uu zakada bixin laayay uu ka cagajiidayo mataqaana xoolaha ku jiraan laakiin kuwii ka horeeyaan ayaan qofka tarbiyada saxda ah siin salaadii ma si fiican loo gudan soonkii ma si fiican looga faa'iideysanin kadib marka qofku uu yimaado zakadiisa yimaado wallahi inta ma bixin karaba laakiin saxaabadu markay mataqaana ay labadaba si fiican u guteen xooluhu agtooda mataqaana zakada ku waajibay waxa uu arkayaanba inay u tahay wanaagooga iyo maslaxadooda inay bixiyaan oo mataqaana ay gaarsiiyaan xajka waa rukni kamid arkaanta islaamka oo rukni u dambeeya qofka muslimkaana hal mar buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku waajibiyay salaada maalin kasta la iska rabaa soonka sanadka hal mar baa iska hatta kuwa istidaacad ku xiran laakiin xajka waxa hal mar baad gudanaysaa waliba waxa ku xiran liman istata qofkii awoodii u mataqaan xajka ku gudanayay haday caafimaad tahay iyo haday dhaqaale tahayba qofkii labada leh marka qalbku waxa dhici karta qofku isagoon kuwii ka horeeyay aan halkii raba gaarsiinin inuu arko inuu xajku ka sareeyo kuwa kale oo xajkii mataqaana xataa qofkii deen u qaato maalin ba qof baa wuxuu yiri sheekhow xajka marka la tagayo in lagu xajiya mataqaana muxuu ahaa xoolo xalaal oo wanaag xayaba caynkaas marka midalan lacagta ay dawladdu nasiiso ee loo ogol yahay sharcan ma ka xajin karaa marka su'aal baan dib waxaan weydiiyay horta ila cunaba banaanta ila ana culama banaantahay ha wuxuu way banaantahay oo anu wax aan xaqdana ku qaatay maaha laakiin wixii uu qaanuunka iyo dawladdu ogolayd ee loo qoondeeyay oo baan qaatay marka waxa muhiim horta marka koowaad intaan xajka laga fikirin in laga fikiro waxaan cunaynaa maxalaalba halka inaga soo galayaan sababta Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu nabi xadiid ku yiri in Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Ilaahay waa wanaagsan yahay wax wanaagsan wax kale ma aqbalo marka qofka xataa waxa ka horeysa arinta xajka gudashadeeda inuu qofku ka fikiro waxa uu cunayo calooshiisa galayay Ilaahay raali ma ka yahay kadib taas waxa qofka u sahlaysa xataa inuu Ilaahay xajka u fududeeyo oo u sahlo cibaadadiisa la aqbalo marka cibaadaadku saas iskugu xidhan yihiin in la kala mataqaana saaro midna xoog la saaro midna la dayaco mid laga gaabiyo waxa imanaya muxuu ahaa khalal baa ku imanaya tarbiyada qofka muslimka ahayd ee miisaani marka inta aanan u galin mowduuca duruusta tarbawi ee laga faa'iideysanaya xajka ma oran karaa midalan dadku markay xajka aadayaan qofkii inuu xajkii aado oo sajilo magaciisa xajkii uu aaday oo waajibkii uu gutay oo xajkii inuu aaday ay ka dhacdo sida ardada imtixaan galayso kale ardoo marka imtixaanka galayso mataqaana imtixaanka wada galeen ardayda laakiin way kala qaybsamayaan oo qaarna imtixaanka way najaxayaan
si kala duwan u najaxayaan qaar najaxad hoose mid صح. dhexe iyo mid sare mid- qaarna way dhacayaan iyagana kuwaana way kala daran yihiin marka ma la odhan karaa xajka muhiimadda sirta ku jirta xajka ama cibaadada ku jirta waxa weyn waa ilaah inuu aqbalo waa qabuul min allah subxaana wa tacaala ma aha keliyata inaad meeshii tagto oo aad dhibkii iyo wixii kugu dhacan بارك الله فيك علماء waxay dhahaan ربما فتح لك باب الطاعات ولا يفتح لك باب القبول waxa laga yaabaa in lagu furo baabka daacadka ood ma taqaan xajki gudato ood soo gudato oo salaadi gudato laakiin wali uu ka xidhay albaabka aqbalaadi ijaabada marka cibaadadka waxa asala inuu ilaahay aqbalo marka muhiimadu waxa weeyaan qofka inuu ka fikir kale haata inuu physically meeshii u tago oo acmaashii ma taqaan uu jasadeen u guto laakiin inay welwel ku hayso acmaash maalintu xajka niyoodo ilaa intuu ka dhamaysanayo ilaahay ma aqbalaya aqbalaadana waa inuu qofka marka uu raadiyaa markuu ka fikiro dareenkaas ku dhasho waa inuu raadiyaa shuruudii ma taqaana ilaahay camal ku aqbalayay inuu fuliyo in kale marka waxa laf dhabar u ah camal kastoo la qabanayo oo xajkuna ka mid yahay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka aqbalo waxaa dhici karta qof sooman siduu nebigu tilmaamay oon soonkiisa daal iyo gaajo iyo rafaadna wax kale ka faa'iidin qof waxa laga yaabaa salaad tukanayo taagan oon salaadiisa tacab iyo daal wax kale ka faa'iidin xajkina albad buu noqonaya qof ma taqaanaa buurtii carafo kore ma taqaanaa manaasigtii dhan gutay jidhkii ahaan u rafaaday imtixaankana ku dhacay waa musiibada ugu weyn ma taqaana qofka mu'minka ama qofka muslimka ku dhici karta waa in imtixaanka ku dhacaa imtixaankaana mid hadda lagu oranayo ma taqaana waad ku dhacday iyo waad ku baastay oo toosa maahine laakiin qofku wuxuu ka dareemi karaa markuu xajka ka soo laabto acmaashiisa iyo raadkii uu kaga tegay xajku ayaa laga yaabaa inuu cala aqli subxaanahu wa tacaala ilaahay rajo fiican ka qabo inuu ka aqbalay marka aqbalaadu waa laf dhabar camal kasta oo la sameynayo camalka aqbalaadu waa laf dhabarta camalka laakiin dhicitaankii waajibka waa xuduurka qofka dhicitaankii waajibka qofka uu tagay arkaantii hadduu si fiican u guto iyo axkaamtii si fiican u guto waajib ahaan uu ka dhacay laakiin ma laga aqbalay waa mas'alo kale iyadna ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xiran marka waxaan rabaa sheekh cabdicasiis inaan wax taabano duruus badan baa laga faa'iidsanayaa runtii xajka صح culamada qaarkoodna waxay ka qoraan kutub bay ka qoraanba oo waqtigan yar hadda aan joogno kuma dhammayn karno marka waxaan rabnaa inaan dhowr qodob ka soo qaadano oo laba qaybood ah qaybta koobaad shakhsiga fardiga ah duruusta shakhsi ahaan uga faa'iidaysanayo xajka maxay tahay بسم الله الرحمن الرحيم خير الله كسيه بارك الله فيك حجك دروست laga baranayo fardigu qof ahaan isaga shakhsiyan faa'iidada ma taqaan u soo gaadaysa waa mid koowaad wuxuu xajku ku tarbiyeenaya oo adkeynaya tawxiidki ilaahay subxaanahu wa tacaala kelinimadiisii hadday tahay hadal iyo hadday tahay camal ahaanba oo waa kan talbiidi ka bilaabmaysa labayk allahumma labayk labayk la shariika lak qofka marka wuxuu qirayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii inuu ilaahay yahay cibaadada isagu leeyahay marka waxay qofka xasuusinaysaa asalkiisii iyo tawxiidkiisa oo adkeynaysa waa faa'iido koowaad qofka uu ka helayo isagu shakhsi ahaan ma taqaana ilaahay subxaanahu wa tacaala ku toojiso tarbiyada labaad ama darsi casharka labaad waxa weeyaan qofka carabkiisii wuxuu xasuusinayaa oo uu baraya u tababaraya ilaahay xuskiisa inuu carabkiisa ku qoyanaado ilaahay inuu markasta xuso oo waa ka ilaahay subxaanahu wa tacaala quraan ma taqaana walaa jidaala fi lxaj qofkii waxa laga reebay wax kasta oo laqwiya ama wax kasta oo aan banaanayn marka qofkii inuu xus ilaahay hadduu dawaaf ilaahay buu xusayaa hadduu yowm carafa joogo ilaahay buu baraya ma taqaana wuu ducaysanayaa xaramka markuu galo ilaahay buu barayaa ramigii markuu tuuray waa kan takbiirta ma taqaana raacinaya marka waa tababar carabka la tababarayo inuu qofku dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xuso alxamdulilah allahu akbar walaa ilaha illa allah taa marka qofku soo tababarto kadibna uu sii waasilo ilaa tarbiya u noqoto dhaqan joogto ah midda saddexaad haddii aan ma taqaana dul mar wax weyn qofku waxay xasuusinaysaa meesha uu u socdo oo masiirkiisii dambe aakhiri xasuusinaysa qofku markuu dharka cad xidho oo ma taqaana safarka u baxo xajka uu gudanayo ma ogo ma ka soo laaban doono mise ka soo laaban maayo marka waxay xasuusinaysaa inuu iyada lafteeda u diyaar galoobo gurigiisii dhabtahay u socday oo ma taqaana una ogeyn goorta uu gaari doono waxay kaloo qofka ma taqaana macnaha ma oran karnaa halka haddaan wax yar aan kaa dhex galo ma oran karnaa dharkan cadcad ee dadka xujiyada ay xiranayaan oo halka midab ah oo dadku dhan ay xiranayaan nin maal qaba iyo mid maal qaba oo dhan waa kafan ahaan isagoo nool buu kafanta xidhay marka waa xusuusin oo qabriga inuu xusuusto meesha baarak allah fiik meesha ay qofka ka xasuusinaysa ma taqaana aakhiradu waa kafanka qofka uu xidhanayo marada cad markuu xidho qofku wuxuu xasuusanayaa maalmaha ka mid ah in iyada lagu duubi doono isagoo ma taqaana dooranin halka maanta isagaa xidhay isaga gacantiisa ku xidhay laakiin waa la saari doona waa lagu marka kafankaas qofka waxay xasuusinaysaa qabrigiisii marka qofka wuxuu ka fikirayaa qabrigii maxaad u hormarsatay maxaad ma taqaana camal saalix la samaysay marka marada cadi qofka waxay xasuusinaysaa dhimashada oon cid ka fakan karta ayna jirin kadibna hadduu qofka dhimashada xasuusto su-aasha ku xigta waxay noqonaysaa maxaan hormarsaday oon maalinka la tegi doonaa marka macnaha dadka marka sheekh waxaa laga yaabaa dadku inayna ku baraarugsaneenba kafantaas oo ay u arkaan inay kamid tahay un arkaantii xajka
oo xajku uu laba mar xidhay laakiin laba mar hadafka laga leeyahay ama xusuustay ku xiran tahay inayna dad ku baraarugsaneen si xataa uu cabsado ama uu xismo maxaa marka waxaad isweydiin kartaa imka cibaadadka kale oo dhan dharka gacanta ku tukan kartaa shaar xidhataya khamiis xidhataya mataqaan wax kale xidhataya haddaad sooman tahay dhar gaar laguma weydiinin zakadii dhar xidho laguma waxmaad bixinaysaa marka ilaahi subxaana watacaala markaad si qoto dheer u fiirisa mataqaanaa xajka iyo mataqaanaa duruusta laga baranayo waxaad fahmaysa marka qofka la yidhi weliba cumriga waa hal mar baa qofka uu xajinaya marka qofka marka dharka xidho la yidhi waxaad moodaa in la xasuusinayo meesha mataqaana waad ka tegaysaa oo waxaad leedahay guri kale oo isagu daa'ima meeshana waa daartii aad ka sahi qaadanaysee xasuusina ha hilmaamin marka mujarrad dhar la xidhanay kaliya hata maaha laakiin qofkii waxa laga reebay adduunyada dhan baa laga reebay qofku dharba nimba intuu jecel u xidhaa mataqaana nin walba intuu ilaahay sii u xidhaa laakiin dadku dhar isku mid xidha dharka cad xidho isku mid ka xidha qofka marka waxa la xasuusinayaa adduunyada lafteeda inta baad kala tagaysaa iyo waxaad adigu mataqaana camal saalix ku qasbatay ka hormaray laakiin wixii kala banaanku kaaga hadhaya marka waa xasuusin qofka muuminka la xasuusinayo ogow la leeyahay masiirkaaga iyo meesha aad u socoto haka mataqaana qaflaha ka galin qodobka afraad ee mataqaana duruusta laga qofka uu ka faa'iidayo xajka waxa kamid ah qofka waxa ku tarbiyanaysaa inuu ka adkaysto macsiyada xataa waxaba qofka mataqaana xajka markuu qofka uu ihraamka xidhanin u xalaala ayaa la yiraahdaa sameeynin haday guur tahay ama guurso ama guurin la yiri hadalkii laftiisii waxa la yiri mataqaana fala rafata wala jidaala wala fusuqa fi alhajj hadal xun iyo laqwi iyo mataqaana waxa weeye waxa sida qofka laga reebay marka qofka waxa ma aha inaad inta xajku laga reebay laakiin waxa lagu siinayaa injection waxa lagu siinayaa irbad ah ama tarbiya ah ina tababar ku noqoto saadoo markaad u noqoto aad u ogaato in waxaan marka kale ka reeban yahay marka qofkii waxa ku tarbiyanaysaa inuu macsiyada ka adkaysto isla dhinaca kale waxa ku tarbiyanaysaa inuu qofku u adkaysto ilaahay daacadiisa daacada ilaahay dadaal ba u baahan tahay qofkii mataqaano acmaasha gudanaya oo mataqaano jirkiisa daalay waxa soo dhan wuxuu qofku ugu adkaysan ugu raaxaysanaya inuu gaaro ilaahay raali ahaanshihiisa haddii ilaahay raali ka noqdana xataa jannada waxa ka sareeya ilaahay raali ahaanshihiisa marka qofkii ilaahay raali ka noqdo jannada waad gashay oo taasa qof qaayada qofka muslimka waa inay noqoto ilaahay raali ma ka yahay mise kaama ah kadib inuu qofku uu raadiyo waxa kale ma taqaan qodobka lixaad ee qofka la tacalluqo ka waxa kamid ah ilaahay subhanahu wa ta'ala jacaylkiisa fiiri mandarka intaasoo qof oo milyan ma meesha isku timid ilaahay subhanahu wa ta'ala iyaga saa u socda ayuu u fududeynay ricaayada ilaahay iyo xifdiga ilaahay iyo waxay xajka ku gudanayaan ilaahay ilaaladiisa oo iyagoo saalim oo nabad qabo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka soo celinay waliba u fududeynaya oo mataqaana waxa weeyaan ay isku kaashanayaan isku mataqaana waxa weeyaan marka ilaahay xataa qofka inuu ogaado ilaahay nimcadaas karsiiyay oo u fududeeyay waa inay jacayl u siyaadisa markuu qof bani aadam waxoogaa mataqaana ku qabta markuu caawiyo qofka maskaxdiisa meel bad ku qortaa ama waad hadhow shukriga yani mataqaana waad u xustaa fama baaluk ilaahay ku abuuray ee waliba meelaha mataqaana ugu fadli badan dhulkiisa ku geeyay kuna fududeeyay xajkiisa marka jacaylka ilaahay abuuraysa ma la oran karaa marka xataa qiyaamaha maxsharka maalinka qiyaamaha waa lagu xusanayaa maalinka carafa la taagay oo intaas milyan oo qof oo hal dhar oo gaar qaba ay taagan yihiin oo qoraxduna inay kulushahay laga yaabo waxay xusuus u tahay maalinka macnaha qiyaamaha qofka uu tadabburayo maalinkaas dadku dhiidku liqayo way u tahay oo marka dhinac ka fiiriso waa mandar iyo maxshar iyo muuqaal dadku ay siman yihiin kii wasiirka ahaa kii madaxweyne ahaa kii maalqabeenka ahaa kii caafimaad qabay ninka halkaas la wada taagan yahay dhar isku mid ah la xidhan yahay cid dheer wax ma laha waxa la isku dheer yahay waa ikhlaaska iyo ducada ilaahay la baryayo ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ka aqbalo amalki marka dadka xataa wax maalinta maxsharka ilaahay ummadda oo soo jamcinayana sidaas loo sameeyaa nin kastaba mataqaana waxa weeyaan laqabkii iyo mataqaana magaca hadda uu sitay adduunka uu ka hadhaya ilaahay mataqaana quraanka waxa ku soo arooray marka dadka la soo ururiyaa qiyaamaha liman al-mulku al-yawm warmaanta ayaa boqora lillahi al-wahid al-qahhar marka halkaas qof kasta ku dhiibaya oo kaga hadhaya wixii uu sheeganay tan marka xasuusin baa dadka u tahay maalin caynkaas oo kale loo siman yahay oo ilaahay uu boqor yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala loo wada siman qof kasta amalkiisii uu shaqaystay oo lagu xisaabin doono ayaa idin sugaysa iyo xisaabta ku darsada oo marka laabataan si wada mataqaan xasuusta meeshaas iyo maxdarkaas ha ka muuqata amalkiina iyo mataqaan shaqadiina aad qabanaysaan marka iyana waa xasuus kale oo mataqaan wax weeyaan xasuusinaysa muxuu ahaa maxsharkaas iyo qiyaamaha iyo waxa soo dhan mataqaan qofka muuminka xasuusinaysa marka qofka muuminka xajka wuxuu ka soo laabanayaa isagoo casharo aad u tir badan ka soo bartay oo la rabo xataa inuu ku gaaro xajka soo socda haddii ilaahay u saalino xajka socod ku gaarana in gaarsiisada mataqaan dhimashadiisa oo mataqaan uu daa'imo
jidkaas mataqaanaa uu jeexay markuu soo xajinayay ذكر إلهي بأوه رأي أو ألا بذكر الله تطمئن القلوب كاسا ugu horeeyo kowka توحيدka ku xiga qofka Ilaahay subhanahu wa ta'ala labbayk Allahu labbayk la sharika lak labbayk waxa ku xiga mahadnaqi qofka uu mahadnaqayo subhanahu uu garabsanay nimcada Ilaahay ba kamida xasuusin dhimashada ayaa mataqaana muxuu ku xigtay inuu qofku ka adkaysto macaasida oo mataqaana uu ka reebtoomo tarbiya sabirka inuu u adkaysto iyo mataqaana gudashada waajibaadka iyana kamida Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa soo dhanku siiyay inaad jeclaato oo mataqaana muxuu ahaa aad u noqoto adoon Ilaahay jecel subhanahu wa ta'ala oo adoonnimadiisa ogol ayaa muxuu ahaa fawaa'ida guud mataqaana hadda aan inta waqti kaga faa'iideysan macnaha qofka shakhsi ahaan qofka ka faa'iideysanay inta macnaha marka intaanan u noqonin qaybta labaad oo ah la xiriirda ummadda telefoonkan yar qabanaa leenka telefoonka leenka ugu horeeya insha Allah السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم waan ismaqalweynay qofka insha Allah leenka xiga insha Allah السلام عليكم waxaan u noqonaynaa qaybta labaad midaas waa run ahaantii duruus badan oo fardiga shakhsi uu ka faa'iideysanayo badan baa jirta السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها ولا المقعة الو تمام والله waxa la yiraahdaa Abdullah Maxamed Saliira Abdullah حقنا سو عيسى عبد الله حقنا سو عيسى عبد الله تي في اسك قاوي سعودي علينا كتب سعودي عربي اسك قاوي تي في قاوي رالي عبد الله تي في قاوي خير الله بسم اي بو الشيخ اليوم ابيات بان ugu mahadcelinaya horta dad waxaana Ilaahay ku xiran laakiin macaasida uu ka sheegay ka waran hablaha oo Yurub joogo madax sii deysanayo to macaasi kabeer Soomaaliya sheekh markaan weydiiyo taas maxaad su'aasha ku celi hablaha madax deysanayo oo madax qaawan soo macaasi kabeer Soomaaliya ama ayada han noqoto macaasi ka noqoto ama qofka fiiriyo macaasi maadan macaan waa su'aal weeyaan ha waan su'aashada waan fahnay ha su'aasha insha Allah barakallahu fiik leenka xiga insha Allah leenka xiga ka soconayna insha Allah waan haddii aan u noqono inta aanan su-aashan ka jawaabin aan u laabano ka ummad ahaan duruusta laga faa'iideysanaya maxay tahay mataqaanaa xajka dhowr qodob oo ugu muhiimsan insha Allah ta'ala ummaddu inay ka faa'iideysto ay tahay barakallahu fiik jazakallahu khair waxaan hore tilmaanay duruusta oo qofku isagu shakhsi ahaan uu ka faa'iideeyo uu ka baranayo ka ummad ahaan ka jamaaca ahaan ka muslimiin ahaan si mataqaana wada jira maxaan xajka ka faa'iideysanaynaa mid ugu horeysa waxa weeyaan midnimada ummadda islaamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanku ku yiri wa inna hadhihi ummatukum ummatan waahida qof inagoo kala qabiil duwan kala kalar duwan kala luqad duwan qof atoo min kulli fajin amiiq meel kasta la iskaga imanaya waxa la iskugu imanaya buqcada yar si Ilaahay subhanahu wa ta'ala loo wada caabudo marka taas waxay daliil u tahay ummadan sidoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wa inna hadhihi ummatukum ummatan waahida inay u tahay jid kale haata oo aan kala maarmin oo mataqaana isku xiran oo la rabo inuu sidoo Ilaahay uu u rabay inay u dhaqmaan oo midnimadaas iyo mataqaana iyo waa dareen mataqaana ummadda ka dhaxeeya haday wanaag tahay iyo farxad tahay iyo haday xanuun tahay ay wada dareemayaan taa marka xajku dadka mataqaana uu ku baraarujinaya marka isku yimaadaan waxa laga qof aradu waliga la kulanteen inay idin kulmisay diinta islaamka iyo tawxiidka iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kelinimadiisu halkaas isku timaadeen Ilaahay wada caabudeen halkaas isku barateen wad ku walaalowdeen waxa laga in xiriirku ka bilaabmaba marka in ummaddu tahay ummad mataqaana walaalo ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu u dooray in ummadda islaamka ummad walaalo ah noqoto oo mid taas waa mid taas oo waa tababar labay muslimiintu ay fahmaan oo ay mataqaana ka faa'iideystaan waliba gaar ahaan ummadeena mataqaana aad u daristo aad u fahanto oo aad mataqaana u weelayso duruustaas waa laga maarmaan macnaha aan dhiri ummad muslimiinta midnimadooda waa muhiim jiddan oo midda mataqaana ummad Ilaahay uu ku tilmaamay waxaan u malayn darsiga ugu horeeya laga faa'iideysan ay tahay Soomaalida oo ah dad yar muslimiinta waxaa la yiraahdaa waa bilyan iyo dhowr boqol oo milyan baa lagu qiyaasaa bilyanka iyo dhowrka boqol ee muslimiinta lagu Soomaalidu waxay ka yihiin wax ka yar yani dhibic aad bay u yihiin dhibicdii nooca ahayd ka waran haddii iyadu wuxdadu markaa yani waa xanuunada in haysta ka mid tahay oo mataqaana inugu habsaday laakiin u baahan in la daweeyo oo dawo loo helo oo xataa laga fiiriyo qofku ka fiiriyo manduur islaami oo ka fiiriyo aragti islaamku muxuu ka qabaa wax qofku waa muslim buu sheeganaya marka mabda aad u nisba sheeganayso waa inaad ka turjuntaa oo mataqaana muxuu ahaa aad wixii nolosha ku eegtay marka waa taan u lahayd mataqaana ummadeena Soomaalidu waa inay ayna xaj ahaan u tagine ay ka bartaan
duruus mataqaanaa siday midnimadooda iyo walaalnimadooda iyo mataqaanaa dareenkooga ay u ilaalin lahaayeen mataqaanaa oo islaamku naga rabo inaan ilaalino waa darsi u baahan in laga barto ka labaad darsiga labaad waxa weeye qofka waa tababar ama mataqaanaa tadriib qofka lagu siinayo waxa la yidhaaho nidaamka iyo mataqaanaa indibaad oo mataqaanaa qofku inuu noqdo qof noloshiisu nidaamsan tahay ilaahi subxaana wa tacala hadda maalan xajka oo kale acmaasha waa la tartiibiyey kaa gudo haddana kaa gudo haddana kaa gudo haddana kaa gudo ilaa aad ka dhammaynayso tartiib baad u socotaa mataqaan marka ma aha sudfa maaha mataqaan in tartiib la iskaga socdaayo waa inuu qofku uu ka bartaa inuu noqdo qof munadama noloshiisa laga soo bilaabo qoyskiisii jiraankiisii uu ku baraarugo ilaa ummaddu ay noqoto ummad nidaamsan oo mataqaanaa ismaqlayso oo nidaam leh oo tartiib iyo mataqaanaa si hanaan quman u socota waa darsi laga baranayo وإلا هديك لما تقرأ واحد لقيه إله سبحانه وتعالى هو أود إنه يراها كامل كده جوتك أودن بيبود أما حتى صلاة اللي في الأساس له ترتيبية وقت حديدا إمام بكتب صف وحيابها صار لما تقرأ واحد لقى برنا إياه قفك مسلم كأنه سياسة تربية إنه برت نظامك يا ما تقارنا هناك نلوش إله سبحانه أسعته أو تلقى إنه أسعته إنه قفك برته وفهمه ودرسك الله بعد لقى برنا ولي واحد كم تاي ما كان سوف يرسو خصائص أما تلمها سلام كم عبادة الإسلام كأت في رسو نظام كاس يندبه كاس كجرا وانا توبر أمد الإسلام اللي قلت توبره أمد الإسلام كمركي قاعدتنا هرمر يوحي كوجالين النظام كوجال وحلا جاي بهذا مدام قلبته كنا ولا هاي النظامك إذا كلا دمبينتا إذا ما تقن أو حلا ترتيبيو ولا هجاجيو تبدأ إنه أفهمان أيوه هيستان با إن هالك كبلا بنتي لكن أنا دريكم بكون جريم با إن الدين تودا الله دبر كتاعي مركا تلفو إنه براروجا مركا مدوام إنه هذا كتير نواجار ونقول عن فوضى عن دورنا ما تقارن نظام الآن لكن دين تاني إسلام كأنه وحلف دور وحيابها كم لقد برنا حج كنا نبريو أنت نظامك إياه ما تقارن ترتيبته إياه قاب كاس إلا لون ولا أو قاب ندم لون ولا نبينا صلى الله عليه وسلم وتي وكهجة وهذا أركيس حتى مركي ضواف كنتكم إسماعيلية أنا السودان هل قفة دوا السودان إيرك وكذا وضعها والنظام يعني والنظام ترتيب قف كاس إنه كل إسكو أرضه ما تقارن إنه هالكاس المالية تاسمكم بلعبة يولد هذي قف كاس ما تقارن لصعنا يا لقد بقرنا يا وحاسودن ودروس قف كنا وإنه برتولوجي زكار كأ ومدنا أي برته مال حالي عرفوه مالن كاس مالن بالوحدة دي هذا مالك اللي قمت إنه بوس معين جغرافيا منطقة جغرافية محدودة يا الوحدة يعرف الوحدة دي والنظام والنظام عبدي مال بكوت الله ضوافكي مال بالوحدة دي برقف هذه ماشى الوحدة دي مال كبح عرف إنه يستاجي عبادي أقبل من نقنيس سعيدي أردكي مال بالوحدة وحاسد قف وحيبرا يعني هدو قف أفير صدام والإلهي عبادة سلم بقول نظامية نلا شيء كلا وإسر الله نظامية أصير أي قرح بدنا إلهي سبحانه وتعالى عبادة كيسو وأقرح يؤون أكسنيهن مركوا دروس باهن يقف وكبر أرجو ومدنا يكبر أرجوته جماعنا يكبر أرجوته وحكم إذا دروس كلا لقى برنا يو دين تنو إلهي سبحانه وتعالى دين فضود هذا متى كان صدق دين فضود إلهي سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واجب كاستقال إن الساري ومن الأودي كرنو وحين أودي إلهي نمساري حتى كوي ما تقانا ضعف جينا وحاجة نقول صلاة إله وح النسية ما تقانا محوها سيابا كلهم أجودنو النسية أو صلاة واحد هكذا جينا لكن سرجوج فرد كنتو كذا جيف كنتو كذا فرق إلا الجارزية ما تقانا هالكود دمبيس أن مرك هذا الحج أصلا لعبنا مثلا تصالح حكم ده ما لا حج كلا حد ناكل إلا ما يقول لك مدقين ولا كلا دوي سل لو قف ذا خلق جاه مقادير مقاد حج كلا حد أنا يو جهوي كلا دوم بلا قدامي مرك جهة كاستعدي كإيمان يسا سأي هلك أوجس سحرة تردك إنه جهة قرها هاتا كشرق كإيمان هذا قلبك سحرة بري كإيمان قلبك سحرة وحلا كإيمان كل بعد تذكر رفاض لكن ما يشوف كإيمان ملك توصل لك سحرة وتيسير إلى سبحانه وتعالى وخلق جيسة وفدودي إن عبادة جتان إذا واحد عبادات كلا أعمال كلا وإلى سبحانه وتعالى إنه جفوا ذي مركز الدين تانو ودي كل سن نحريس يتوريتان إلى سبحانه وتعالى إسقى أن ونقول وأنا جعلك أن جعلنا هاي وحي إن فري يدو أن نفهم من السيد الصحة هاي فضلنا متقان إلى سبحانه وتعالى وفدودي درس أفراد اسمه درس آدم مهمة وحويان وهذا دنا عن كتاب إنه متقان السنات اللي سميها حق محشر قيامها الدون كنا المساواة والعدالة مركز إمك حاجة اللي يسكوتها dadku wax san horotul maano wax xiriyihiin mardaacad kii waxaysta iyo kan waxaysan iyo ma taqaana wax kala saari maysid waa isku mid baa leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala adoomihiisa sidaas la raba inay u noolaadaan qofka mu'minka qofka kale walaalkii inuu la siman yahay wax uu dheer yahay ayna jirin ilaahay ma taqaana wuxuu yiri annaasu sawaasiyatun
كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى مركا ميزانك وحيابها هذا اللي ما كمتها ميزانك إلا سبحانه وتعالى dadka ku qiimeynayay ma reerka ka dhalatay ma wadanka aad ka timiday ma mataqaan xoolaha haysato hadda xoolaha wanaag isticmaasho xasanka kamid tahay laakiin waa alla ka cabsiga ilaahay ka cabsantahay taana waa mas'uuliyada subhanahu wa ta'ala qalbiga daalacshada ku xidhay ilaahay u daalacana inda allah atqaakum ha marka taqwada waa in nolosha ka muuqataa oo nolosha la timaada marka inuu qofka markuu isweydiiyo wasiirkii shalay mataqaana marka nolosha la joogo keer duwana ama mataqaan aha xajkii marcad buu xidhay madaxweynihii boqorkii waxa soo dadka waxay barayaan marka guryaha ku laabataan isku naxariista واتمنتينو ogaad ilaa hortiisa wad u sibanta xuquuqda iyo waajibaadka waxyaalahaas oo duruus baahan in mataqaana si qoto dheer looga barto xajka oo looga faa'iideysto darsiga kale oo mataqaana isna laga faa'iideysana waxa kamid ah xusnul khuluq akhlaaqda wanaagsan oo ina kamid ah waxyaabaha ugu culus miisaanka adoonka maalinka qiyaamaha athqalu ma fi mizan al-'abd yawm al-qiyamah xusnul khuluq islaamkana laf dhabar ba u tahay عبادات هذا أن شيء إنه أنا ما تقارن صلاة صومك حتى زكاة حجك وحا صور أنا وحا ذلك قفك منك بريان أخلاق لا سبريان وناكسن وله الرب النبي سموه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق عبادات كاسنة أخلاق لها سيقفك بريان صلاة دي مثل واحد من لم تنا صلاته عن الفحشاء والمنكر وحويان معناكم مفردوا صلاة وين ما تقارن قفك وحا اللي وين أخلاق عنك سجدتها صومك من لم يدع قول الزور والعمل به وهالكاس اللي مريه مركا حسن الخلق حج كده محل يري فلا جدال في الحج ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ما لا يعني هي اللقوي هي هذا المتقانا أنا آخرين وح فايدين الدنيا وحسوك الدنيا هي ولي بهذا دم بكل درسته إنه بعتكره مركا حسن واحد الكهرة أمورها سي مركا كلامه ربيهين لكن حج كنا وحلا متقانا حشمة جارة هي متقانا محوها درجة جارة يولي تعالنا أنا ما أعرف لما يستردون إن شاء الله ولانك التلفون نقرنا واحد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هاولا المقعة تي في اسك قال هذا ورا ولا دودي ادم بالله واحد كلا سو هادليا انجليزكا دودي كسو دو برنامجك xodkaygu bay ugu soo noqonay waa marka hore salaam alaykum salaanta islaamka ugu qiimo badan baan ku salaamaya marka xigtana su'aalka yar baxsan xajka baan idin weydiinaya maanta mowduucan ka hadlayno xataa maartay xajka waan ka hadalay hadda koor xukunkiisa waxa weeyaan waa waxyaalaha laga faa'iideysanayo qofka muslimka uu ka faa'iideysanayo marka aan salaada ka bixin farahayga ku tasbiixsado haddaan tusbaxa iskaga wardiyo maxay tahay walaalo إن شاء الله وسؤال والفهم إن شاء الله هاي السلام عليكم لينك حاجة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها ولا المقعة ولا المقعة هندا اللي هذا هندا حاجة دكتور ما نجستر أنك سو هلا يا كسر نو برنامجك هندا والله سعتان ولا أشكر كله وبارك الله فيكم وياكم إن شاء الله إياكم وعمر قاعد في أنا أرتا برنامج لو باهي هاي محاضرتي يخلق وراك سناء يا معاملات مركا أنا بدك أديك إصلاحي تاي أقولي يا اللغة العربية أنا مركا حتى كتبتي أما حقرناه أما دعوي أنا فاهمين مركا يعني واحد ضرب هان يكون سو جديد لا يرايهان بالتلفزيون في الصومالي كبحة المعان كورا هذا كسر ميسان برنامج توعية أو ما غير اللغة العربية القرآن كل واحد يجينا فهم النادي إن شاء الله sababta mushkilada ugu weyn dadka ay soo xitay diintii wala akhrina lama fahmaayo qof markuu wax fahmayna ma wadi karo aad baad u mahadsantahay waa fikrad fiican weeyaan jazakallahu khair ha leenka xiga assalaamu calaykum assalaamu calaykum leenkaasna uu gaay waan ismaqlo weyni ka xiga assalaamu calaykum assalaamu calaykum السلام عليكم السلام عليكم waan ismaqli weynay linkaana markaan haddaan u noqono su-aashii macnaha hadda qaybka ahmiyadda uu leeyahay oo dadku ummaddu ay ka qaadanayso tarbiyada صح yani dad intaasoo milyan ah 5 milyan ah oo hal meel isugu yimid oo yar oo kilomitr mucayan ah oo mataqaana iscaawinaya oo ku wada dhawaaqaya hal eray oo hal dhar wada qaba macnaha
maxay ku tusaysaa dadkaas inay akhlaaq heer sare inay xambaarsan yihiin waxaa ka tusinaysa ka turjumaysa wax kala xadaynin waxaa ka turjumaysaa mataqaanaa akhlaaqda qofka muslimka ah waxa uu asal damiirkiisa qalbigiisa u asala marka maalan qofka muslimka markuu ama nafto ama shaydaanku waxad waxa joojinaya qalbigiisa sababtoo wuxuu og yahay ilaahi subxaanahu wa tacaala inuu daalacanayo marka kamarad waxa ku rakiban rabbaaniya hadda casriga joogna mataqaanaa meel kasta kamara ku rakiban marka dadku waxaa laga yaabaa in qofku kamarada iska eego laakiin kamarada ilaah baa wax dhan ka sarreysa marka qofka xajka jooga qofka caawinaya xataa hadduu alaabtiisii aan qaadanaynin waxaa celinaya ixtiraaman uu ixtiraamaya meesha baragsana uu joogo iyo waxaas dhan waxa ka sarreeya ilaahi subxaana wa tacaala abuuray ee uu cibaadaysanayo ayuu uga tegaya marka taa akhlaaqdaas qofka muslimka waxay ku xambaaraysaa wax kastoo dhibaato keenaya inuu mataqaanaa muxuu ahaa uu ka fikira marka hore ilaahay maad ugu dhawaani waxaan isagoo kaa fogeynaysa hadduu ilaahay ka fogeynayso war wuxuu leeyahay waxaan iga daa haddii ilahay ugu dhaweynaysana wuu mataqaana wuu ordayaa oo wuu la imanaya marka marba waxay ku xidhan tahayna mataqaana awooddaas mataqaanaa muxuu ahaa qofka damiirkiisa iyo qalbkiisa intay nooshahay ayuu qofkuna mataqaanaa muxuu ahaa khayrkan u orod badan yahay macaasidana marka taas waxay ku tusinaysaa akhlaaqdaasaa mataqaanaa qofkaas muxuu ahaa qalbigiisa fadhida oo u diidaysa inuu addoomaha ilaahay dhibo ma oran karnaa marka haddaan ku yar darsano waxoogaa waxyaala badan ba horta ummaddu ay ka faa'iidaysanaysaa laakiin waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah dadku inay macnaha ay fahmaan fiqiga khilaafka masalan oo waxaad arkaysaa markii la joogo xajkii 3 nooc baa loo kala xidhaa midka xajka liituu xidhay oo mataqaanaa ma haysto wuxuu sadaqaysto oo qalo midna waa mutamatic oo inta cumro la yimid buu iska waxaysmay midna waa mataqaanaa muqaaran oo cumradii iyo xajkii buu isku xidhay mid timihii buu gaabin mid wuu xiirayaa mid waasac noocaas oo kale ah mid uu mataqaanaa uu degdegayaa mid uu dhammaystirayaa wixii oo dhan marka midaba la odhan kara laftoodu mataqaanaa fiqiga yani khilaafka oo waqtiga dartii baan mataqaanaa uga booday markii hore waxay xataa la xiriiriyay mataqaanaa taysiirka iyo fududaynta ilaahay subxaanahu wa tacaala intaasoo dhan qofka mataqaanaa waxa weeyaan ka xajka kalaati xidhanaya ka mataqaanaa labadii isku xidhaya ka xalaaloobaya dadka qaarkood waxa laga yaabaa inta kan ka awoodin kana kan u sahlan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaasoo dhan iyagoo ku jira mataqaanaa daa'iradii shareecada haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kala duway marka ikhtilaafka caynka kala duwanaanshaha caynkaasi waa naxariista ilaahay ka mid tahay waxyaabaha shareecada islaamkuna ay kaga duwan tahay sharaa'icda kale ka mid tahay ummad mataqaan shareeco waqti kasta iyo xilli kasta iyo ummad kastaba ay qaadan karto ayna ku dhaqmi karto waana taasa mataqaana ilaahay subxaanahu wa tacaala fudaynta caynkaas iyo kala duwanaanshaha caynkaasi waxay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa naxariistiisa weliba u baahan muslimiintu inay aad u bartaan oo aad u diraaseeyaan oo aad u fahmaan inay ka mid tahay naxariista ilaahay subxaanahu wa tacaala kaas mataqaanaa muxuu ahaa timaha isagu wada xiiraya kaa gaabinaya kala duwanaanshahaasi dadkuna marka inay saa u fahmaan oo saa u bartaan kadibna oo qofka marka saa u fahmo saa u barto xataa qofka kale wuu fahmayaa waxa duwan uu ka samaynayahay inay weli ku jirto daa'irada shariica una dambi ku jirana mataqaana uu ku jiro un ballaadnida iyo waasacnimada shariicada uu ku jiro laakiin markii fahamku uu qalloocdo mataqaana oo qofku uu si fiican u fahmi waayo waxa laga yaabaa inay mataqaana ku abuurto muxuu ahaa xaraj iyo dhibaato fara badan iyo xataa ay keento muxuu ahaa faham darro maxaan ka fahmi karaa marka waaqicadii waqtigii Uthman uu jamciyey salaada uu jamciyey qaarna ay mataqaana asxaabta ku inkireen marka damar ay ku raaceen oo mataqaana xajka la xiriiday taa lafteeda mataqaana waxa weeyaan waxa iyada lafteeda lamid ah xataa ikhtilaaf kala duwanaanshahaas mataqaana in la barto oo muhiim ah nabi sallallahu alayhi wasallam markii uu diray salaada xataa lafteeda uu mataqaana la yusalleena ahadu illa fi bani qurayda ay markii waqtiga salaadii casar gaadhay qolana salaadii waqtigeeda gaadhay ay tukadeen qolo kale mataqaana ay yiraahdeen halkii uu nabigu tilmaamay baan ku tukanaynaa nabigu markay labadiiba soo laabteen nabigu midna ma dhihin mataqaana muxuu ahaa waad qaldantay oo mataqaana waxa weeyaan sawaabka iyo sunnada waad ka leexatay labadii nabigu wuxuu mataqaana waa aqbalay marka fahamka marka qad xataa mataqaana waxa weeyaan kala duwanaanaya la fahmayo nusuusta iyo mataqaana iyo axaadiista marka waxaas wax u baahan tahay in la isku cudur daaro la diraaseeyo si fiican loo fahmo barnaamijka hadda mataqaana gabagabo maraya marka waxaan insha Allah jeclahay inaan ku soo koobno su'aalihii walaalaha Abdullahi Usbuudiga naga soo wacay wuxuu yiri madaxa qaawan soo macsiyo ma naagaha dumarku hadduu madaxa u qawan yahay halkan waa macsiyo macsiyaduna meel kasta joogto meesha isugu joogo iyo meesha anagu aan joognaba macsiyo weeyaan marka maxaad dhihi lahayd midaas yani horta macsiyada waa macsiyo ittaqillah haytu ma kunta islaamku xabaha islaamku uu ajaabta leeyahay qofku meel kasto ardullahi ka tago alla ka cabsi weyn la socdaa marka macsiyo meel la joogo waa macsiyo weeyaan marka wax ilaahay ka reebay ama xajoog ama hajoogin waa ka reeban yahay
nuuc dooni waxa ahaa marka insha Allah gabadhi kale su-aashii la xiriirtay tusbaxa waxaa jira barnaamijyo loogu talagalay su-aashii jawaabta oo fatwa oo culimadu bixiyaan insha Allah barnaamijyada soo wac waxaan mataqaanaa ilaahay subxaanahu watacaala ka baryanaa inuu ka abaalmariyo sheekh cabdicasiis aadam sidaa uu nagu tawdixiyey masaa-isha waxaan kaloo mahad u celinaynaa maxamed yare oo ah farsamayaqaanka barnaamijka iyo dhammaan bahda Somali Journal waa maxamed sheekh aadan odayn la assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh